maalin walba oo ku soo marta waa qayb ka mid ah cimrigaaga. sidaasi darteed sideed maalintaada uga dhigan kartaa maalin wax soo saar leh? sideed maalintaada uga dhigan kartaa maalin xambaarsan farxad iyo firfircooni? كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي في التحدي لا سواه كن سعيدا. assalaamu calaykum. waxaan ahay qaasim maxamed. ku soo dhowow muuqaal cusub. in maalinteenna ay noqoto maalin farxad, firfircooni iyo waxqabad leh waxaa go'aamiya xilliga aan ka soo toosno hurdada iyo waxa ugu horeeya oo aan ku bilowno maalinteenna. ugu horrayn isweydii, sidee ayay ku bilaabataa maalintaada? waa maxay waxa ugu horeeya oo aad ku bilowdo maalintaada? waa maxay waxa ugu muhiimsan ee maalintaada ka dhiga maalin ku farxad gelisa oo aad dareento firfircooni? waa hubaal in jawaabahaagu ay kuu sheegi doonaan maalin walba oo ka mid ah noloshaada in bilowgeedu uu yahay mid wanaagsan oo ku bilowda farxad abuurid iyo firfircooni, taasi oo ka dhigta maalintaada oo dhan maalin wax soo saar leh. halka maalinta ay bilowgeedu kaa xumaadana ay noqoto qayb ka mid ah cimrigaaga oo kaa khasaartay. hadda waxaad isweydiinaysaa, sidee maalintayda uga dhigtaa maalin bilowgeedu uu wanaagsan yahay iina noqota maalin waxqabad leh? hagaag, in maalintaadu ay noqoto maalin aad mahadiso kuna qaabisho farxad iyo firfircooni, yeelo dabeecadahan soo socda. dabeecadda koowaad, qorshay maalintaada ka hor inta aadan seexan. ka hor inta aadan seexanin habeen kasta qorshayso howlaha aad qaban doonto berri. hadduu alla kugu soo toosiyo si nabad ah, aad ayay muhiim u tahay inaad qorshayso maalintaada oo aad habeen walba marka aad sariirtaada tagto ka fikirto waxyaabaha aad qaban doonto berri iyo sida ay u kala horeeyaan howlahaaga. qorsheynta maalintaada ka hor inta aadan seexanin habeen walba waxay awood weyn kuu siin doontaa in maalintaada ay noqoto maalin waxqabad leh oo aad ku qaabisho firfircooni xaddhaaf ah. u fiirso dadka ugu badan dunida, gaar ahaan dadka maanta aan naqaano ee guulaha ka gaaray nolosha, gaal iyo muslimba, waxay dabeecad u lahaayeen qorsheynta maalintooda ka hor inta aysan seexanin habeen kasta, taas oo ka dhigtay maalmahoodii maalmo gaarsiiyey halka ay ku haminayeen inay nolosha ka gaaraan, wayna u rumowda riyooyinkoodii. haddaba adigana qorshayso maalintaada ka hor inta aadan seexanin habeen walba. dabeecadda labaad, ka soo toos hurdada xilli hore si aad u bilowdo maalin qurux badan. ka soo toos hurdada xilli hore marka aad indhaha kala furto. kelmadda ugu horreysa ee maalintaada aad ku dhawaaqayso ha noqoto alxamdu lilaah alladii axyaana bacdamaa amaatanaa wa ilayhi nnushuur, oo macnaheedu yahay waxaa mahad leh allah oo ina soo nooleeyey dhimasho kadib, isaga xaggiisa ayaan u laaban doonaa. bal u fiirso maalintaada bilowgeeda. waxa aad ku bilowday waa mahadcelinta aad rabbigaaga uga mahadcelinayso fursadda uu kuu siiyey inaad adigoo caafimaad qaba aad ka soo toosto hurdada. rabbigaaga ayaad ku ammaanaysaa fursaddan, waayo waxaa jira dad kula mid ah oo xalay ayagana u seexday sida aad u seexatay oo kale, balse nafta aysan ku soo noqon oo si toos ah u geeriyooday ama ka soo toosay iyagoo aan caafimaadkoodu dhammaystirnayn. sidaasi darteed ka dhiga maalintaada waxa ugu horeeya ee afkaaga ka soo baxa in ay noqdaan mahadcelinta allah. kadibna isu diyaari salaada subax oo ah mid ka mid ah salaadaha ugu fadliga badan salaadaha waajibka ah oo dhan, ayna ku adag tahay ilaalinteeda
dad aan la soo koobi karin marka laga reebo inta alla uu u naxariista mooye. adiga ka mid noqo dadka ilaaliya salaadaas. weliba haddii aad tahay qof rag ah, ku ilaali salaada subax jameecada oo aad masaajidka. kadibna akhri kitaabka qur'aanka inta aad ka awoodo. haddii aadan aqoonin akhriska qur'aanka, xitaa dhegayso. i rumayso, maalinta aad sidaasi samayso way kaaga duwanaan doontaa maalmaha kale. dabeecadda saddexaad, dib ha ugu laabanin hurdada. ku laabashada hurdada waa qodob hoosta in laga xariiqo mudan, sababtoo ah wuxuu dhaawacayaa quruxda maalinteenna. ku laabashada hurdada laga yaabay inaad ila aragta waxay leedahay caajis, kor xanuun, xanaaq aan sabab lahayn, farxad la'aan, iyo hurdo aan raaxo lahayn. suubanahayna Muxamed sallallahu calayhi wasallam waxyaabaha uu asxaabtiisa ku boorin jiray ayay ka mid tahay inaysan ku laabanin hurdada marka ay ka soo toosaan kadib, waayo waxay sababtaa faqri aan dhammaad lahayn. wuuna u duceeyey nabigeenna Muxamed sallallahu calayhi wasallam dadka kallaha ee qabsada howl maalmeedkooda, isagoo ugu duceeyey inuu Alla u barakeeyo kallahaadooda. midna xusuusnow, nabigeenna ducadiisa waa mustajaabo oo loo ajiibo si degdeg ah. sidaasi darteed marnaha ku laabanin hurdada. mar haddii aad salaadii subax dukato, bilow howlahaaga kale ee kuu qorshaysnaa. hana iloobin maalmaha kugu horeeya oo aad dabaqi doonto dabeecadahan, naftu way kula dagaalami doontaa oo kaama ogolaan doonto, iyadoo ku soo hordhigi doonta marmarsiyo aad aga joogsato ama aad isaga dhaafto dabeecadahan, balse marnaha ka ogolaan oo isbuuc wax ka yar ayaad la qabsan doontaa. dabeecadda afaraad, wax akhris. wax akhrisku waa dabeecad iyo dhaqan ay leeyihiin dadka nolosha maanta ka gaaray darajo sare. inaad akhriso buugaag kala duwan waxay qayb weyn ka qaadataa korriimada maskaxdaada oo waxay keedisaa macluumaad walba oo aad akhriso. waxaana jirta xigmad dhahaysa qof walba wuxuu noqonayaa ama dabeecadihiisu ay u muuqanayaan hadba buugaagta uu akhriyo. sababtuna waxay tahay mar walba oo aad ogaato wax cusub oo faa'iido leh, waxay ka mid noqonayaan hadalladaada iyo habdhaqannadaada. sidaasi darteed wax akhri aad wax badan ogaatide. xusuusnow, haddii aadan awoodin ama aadan ku fiicnayn wax akhriska, daawo muuqaalada waxtarka u leh naftaada. iyaguna waa qayb ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee ka qayb qaata korriinka maskaxda. dabeecadda shanaad, wax bixi. bixi sadaqo. farxad geli qof murugaysan. caawi qof caawin u baahan. bixi wax walba oo aad awoodo, xitaa shartaada oo aad ka ilaalisaa dadka. waxay ka mid tahay waxbixinta in laga nabadgala carabkaaga iyo gacmahaaga. sidoo kale haddii aadan haysan wax hanti ah oo aad bixiso, ku qaabil dadka weji furnaan oo u dhoola caddeey. dhoola caddayntuna waa sadaqo aan la yaraysan karin. ugu dambeyn, hagaajinta maalintaada waxay door weyn ka ciyaartaa gaaridda riyooyinkaaga aad ka leedahay nolosha. maalin walba qurxinteeda iyo wax soo saarkeeda adiga ayaa mas-uul ka ah 100%. ee ku dabaq nafsadaada dabeecadahan, kadibna fiiri isbeddelka weyn ee ku soo kordhi doona noloshaada. hagaag, waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidaysatay cashirkan, aadna ku dabaqi doonto noloshaada. inta aan goor dhow ku kulmi doonno muuqaalka soo socda, waxaan ku leeyahay maalintaada ku qaabil niyad wanaagsan iyo firfircooni. aad ayaad ugu mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. mahadsanid.